magaciisu waa Khazan Yunis balse dadka magaalada Qudus waxay ugu yeeraan Abu Hurayra taas oo af Carabi macnaheedu uu yahay aabaha bisadaha. Master Yunis wuxuu daryeelay bisadaha ku hareeraysan Masjid Al-Aqsa muddo ka badan 30 sano. Wuxuuna caan ku yahay deeqsinimada. Waxaa kaloo lagu yaqaanaa naxariista dadka deegaanka gaar ahaan carruurta. Isagoo wareysi bixinaya ayuu sheegay in uu ku dhiiraday falkan wanaagsan isagoo ku dayanaya Abu Hurayra Cabdulrahman ibn Sakhar Allah ka raali noqday oo ahaa asxaabtii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. asxaabigaasi waxa uu kaloo caan ku ahaa sida uu u jeclaa una naxariisan jiray bisadaha. Muslim ahaan waa muhiim inaad marnaba yaraysanin wax kasta oo khayr ah xitaa haddii ay tahay daryeel makhluuqaadka yaryar ee Eebba abuuray. Tani waa fal khayr leh oo lagu abaalmarinayo sida ay muujinayso qisadan soo socoto. Nin ayaa mar socdaalayay isagoo aad u haraadsan wuxuu arkay ceel wuuna ku hoobtay biyo ayuu ka cabay kadibna wuu ka soo baxay. Markii uu ka soo baxay ayuu arkay eey afka laalaadinayo oo dhulka qoyan biyo ka dhiganayo. Ninkii wuxuu yiri eygan wuxuu la ildaran yahay haraad sidii aniguba aan ahaa. Markaas ayuu mar kale hoobtay ceelkii kobihiisa ayuuna ka soo buuxiyay biyo isagoo afkiisa ku qaaday ayuu ku shubay eygii. Ilaahayna wuu ugu mahad celiyay falkaas oo wuu cafiyay dembigiisii. Saxaabadu waxay weydiiyeen rasuulka Ilaahayow ma waxaan leenahay ajar haddii aan xoolaha u naxariisano? Wuxuuna ugu jawaabay haa, waxaad ajar ku leedahay naxariis kasta oo aad u muujiso makhluuqaad nool. xadiiskaasna waxaa wariyay Bukhari iyo Muslim. Shaki kuma jiro in Master Yunis uu ku sharfan yahay adeega uu hayo bisadaha gaar ahaan ayadoo uu ku sameynayo dhul uu Alla barakeeyay. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisa kariimka ku yiri suuratul Isra aayadda 1 way sareeyaan Eebba oo habeenkii adoonkiisa uu ka kaxeeyay masjidka xaramka ilaa iyo Masjid Aqsa agagaarkeeda oo aan barakeynay. Haddaba qisadeennii aan kaga hadlaynay nin 30 sano bisad quudinayay intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa. haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar, share garee si ay dadka looga faa'iideystaan, like hanaga iloobin si aad inoo dhiirigeliso. mahadsan.